Puntland madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Cornel Cabdisamed Cali Shire ayaa ka qayb galay shir looga hadlayay dhibaatooyinka burcadbadeed u geysato bulshada oo ka furmay magaalada Garowe. Samira Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa warbixintan ka soo dirtay Garowe. looga wada hadlayo la dagaalanka burcadbadeed oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dekedaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeed Puntland ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Puntland wasiiro gudoomiyayaasha gobolada Puntland qaarkood culimooyin nabadoono iyo waliba ururada dhalinyarada iyo haweenkaba waxaana looga gol leeyahay shirka kulan daahfur loogu sameynayo barnaamij loogu talagalay la dagaalanka burcadbadeed wasiirka dekedaha Puntland Saciid Maxamed Raage ayaa waxa uu yiri maanta waxaan u nimi halkan inaan ku gudbino fariimo iyo talooyin wax ku ool ah oo laga soo saaro shirkan waxaana uu sheegay in ay saameyn weyn ku reebtay bulshada dhaqamada burcadbadeedu aabayaal sidee caruurteedii iyo dhalinyartii dadka mas'uulka ka hayeen burcad loo celin karaa waxaan waxa weeye markaa waa talooyin oo yaqdo xamays la isugu yimid inaan kala faa'iideysano oo wax fiican ay ka soo baxaan maanta shirkan inuu sugan aan isla fahamno yaa meesha waxa la rabaa in qodobo fiican oo wax ku ah oo la yiraahdo Garowe Declaration. Cabdisamed Cali Shire madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa isna waxa uu sheegay in hal meel looga soo wada jeensado la dagaalanka burcadbadeed waxaana intaasi uu ku daray in burcadbadeedu ay sharaf darro weyn u soo jiiday Puntland iyo Soomaaliyaba maanta isma weydiinayno burcadbadeednimadu waxa ay inoo keentay ama guud ahaan Soomaaliya haato ama gaar ahaan reer Puntland ahaatee yacni waxay inoo ku reebtay runtii dhegxumo foolxumo dhinac kasta wayna ka saameysay waxaa loo baahan yahay si wadareed in looga hortago oo looga gilgisho foolxumada joogtada ah oo aynu adduun weynihina kaga baxnay innakiina ayna ku dhibaateeyaan waxaynu ognahay boqolaal sidii hadda aynu arkaynay inay jeelal dibadda ah ay ku xidhan yihiin waxa kaloo jirta boqolaal kale oo ilmaheeniya oo dhalinyaradeenniya oo maanta meel lagu sheego ama laga warrabo aanay jirin shirkan looga hadlayo la dagaalanka burcadbadeed ayaa ku soo aadaya iyadoo hoos u dhac weyn uu ku yimi weerarada burcadbadeed oo ay ku qaadi jireen maraakiibta gooshta xeebaha Soomaaliya iyo caalamkaba Samira Cabdiraxmaan Somali Channel Garowe.